waxaan madaxweynaha iyo dhammaan shacabka reer koonfur galbeed aniga iyo wafdigaygu uga mahad celinaynaa sida sharafta leh oo diiran oo Soomaalinimadu iyo dawlad jacaylku ku dheehan tahay ee lagu soo dhaweeyay koonfur galbeed. soo dhaweynta la soo dhaweeyay waxay shacabka Soomaaliyeed dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba u dirtay fariin xambaarsan kana turjumaysa rabitaanka shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. dadkii Soomaaliyeed ee nagu soo dhaweeyay Baydhabo iyo Xudur magaaladan meel walba oo ka tagno kulligood waxay ka midaysnaayeen inay rabaan dal midaysan, dawlad shaqaynaysa oo dadkeeda u adeegaysa. intii aan joogay koonfur galbeed qof walba oo aan la kulmo codkiisu waxa uu lahaa hadal wanaagsan oo Soomaalinimo ku salaysan. duruufaha ay ku jiraan anigoo og qof qaylinaysa ma arag, qof cabanaysa ma arag, qof codkeeda kor u dhigaysa ma arkin, qof dawladeeda iyo madaxdeeda aflagaadeynaysa ma arkin, laakiin qof waliba wuxuu bixinayay talo ah waa inaan isku duubnaanaa si aan uga baxnaa dhibkaan ku jirno. waa ku ammaanan yihiin reer koonfur galbeed, waa ku ammaanan tahay madaxweyne, waa ku ammaanan tihiin madaxdiina kale. waxay noo ahayd booqasho aan ugu talagalnay inaan madaxweynaha iyo madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed kala shaqeyno baahida ay qabaan. waxay noo noqotay waxbarasho haddii la raadinayay Soomaalinimo iyo dawladnimo kaalay u imow koonfur galbeed. ma ahan hadalkan hadal siyaasi, ma ahan hadalkan in halkan cashana la kugu sameeyey, ma ahan hadalkani in fanaaniin ay halkan joogtay hadal ereyo qurxan ka soo jeedisay. waa hadal qalbiga ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ka soo baxay oo ah dareenkii aan kala kulmay koonfur galbeed intii aan joogay. waana ku mahadsantihiin. waxaa kaloo ii soo baxday dulqaadka dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin, adkaysiga ay leeyihiin. ku dhawaad 30 sano dawlad la'aan, daryeel la'aan, adeeg la'aan. waa inay dhashaa rajo la'aan. dadkan halkan aan ku arkayna weli rajadooda arkay joogtaa. waxaan ka bartay halkan inaan dadkeenna wax ka qaldanayn, inaan dhulkeenna wax ka qaldanayn, inaan hawadeenna wax ka qaldanayn, inaan diinteenna wax ka khaldanayn, laakiin maamulkeenna ay wax ka khaldan yihiin. waxaan halkan ka bartay in shacabka Soomaaliyeed ay ka soo baxeen teedii ama toodii, laakiin madaxda Soomaaliyeed weli aanay ka soo bixin tii laga rabay. waxaa muuqata inay shacabka Soomaaliyeed iyadoo laga turjumayo sawirka aan ku aragnay koonfur galbeed ay ka maqan tahay hal wax keliya, hal shay: Soomaalinimo. waayo waxay fahmeen sida keliya oo dhibka looga bixi karo inay tahay Soomaalinimo. waxaan ku soo arkay magaalada Xudur dad Soomaaliyeed oo iyagu is-abaabulay, isu tegay, iska xoreeyay cadowgii, rag iyo dumar, dhalinyaro iyo waayeel isku duuban
iyagu magaaladooda ilaashada cidda soo gelaysa iyo cidda ka baxaysa magaalada xudur waa meelaha Soomaaliya ugu amniga badan ajnabina kama dhigin cid kalena kama dhigin laakiin waxa ka dhigay reer xudur oo is abaabulay oo la rabo dhammaan shacabka reer koonfur galbeed iyo Soomaalida inteeda kaleba inay xudur ka bartaan wixii xudur ka dhacay waa macquul in laga sameeyo degmo walba oo Soomaaliya ku taal wixii xudur laga sameeyay waa waxa la rabo in Soomaaliya lagu xoreeyo waxaan arkay wiilal Soomaaliyeed iyo gabdho Soomaaliyeed oo aroortii intay soo kacaan tagaya albaabada laga soo galo magaaladaas iyadoon ciidirin baaraya qof walba soo gasha fiirinaya gaari walba yimaada iyo cid walba oo cusub oo magaaladaas ku soo biirta qof walba oo Soomaaliyeed oo xamar iyo meel walba jooga oo aaminsan inaanay dadka Soomaaliyeed iyagu inay intay sabaabulaan aanay cadawga iska xoreyn karin waxaan leeyahay waxaan jawaabtii ku soo arkay magaalo la yiraahdo xudur reer xuduray waa maatantii intii aan joogay koonfur galbeed rabitaanka Soomaalinimada iyo jacaylka dawladnimada aan ku arkay waxay aniga iyo shaqaalihii iyo wasiiradii ila socdayna gelinaysaa dhiig cusub oo ah haddii aan 19 saacadood shaqayn jirnay inaan 2 ku sii darno haddii aan 20 shaqayn jirnay inaan 2 ku sii darno haddii marmarka qaarkood aan walwalsanaynay inaan soo aragnay dad Soomaaliyeed oo nale annagaa garabkiina taaganee horey u socda inta dawladnimada laga soo celinayo waa ku mahadsantihiin reer koonfur galbeed madax iyo shacabba ma niyad jabi karno intaan ognahay in 2300 oo arday ay u fariisteen imtixaanada dugsiga sare ee koonfur galbeed sanadkan marka la rabay inay 30,000 ama 40,000 ugu yaraan u fariistaan waxayna tusaysaa inay shaqo badan oo dhiman tahay haddii aanan shaqayn oo aanan ka shaqayn in ugu yaraan 30 ilaa 40,000 oo arday ee dugsiyada sare mustaqbalka dhow nooga soo baxaan waxaa dhib noqonaysa inaan adduunyada la taltano reer koonfur galbeed keliya uma taalo Soomaaliya oo dhan bay u taallaa ma nasan karno intuu jidku naga xiran yahay mana niyad jabi karno sababtoo ah waa in dadaalada aan wadno aan ku xareynayno hadda shabeellada hoose markaan soo gaarsiino afka bay inaan dhamaystirno oo aan isku furno jidka u dhaxeeya Baydhabo iyo magaalada Muqdisho haddii ilaahay ma niyad jabi karno inta wiilashii iyo gabdhihii Soomaaliyeed aan ku arkay koonfur galbeed ay leeyihiin keliya waxaan rabnaa in fursad naloo sameeyo aan ku shaqaysano ama aan ganacsi ku samaysano ma niyad jabi karno inta weli koonfur galbeed ay ku shaqaynayso halkan oo ah ku meel gaar waa inaan ku meel gaarka ku bedelnaa mashruuci waaray oo ahaa meeshii loogu talagalay ma nasan karno inta ciidamadii aan ku aragnay xudur oo ahaa ku dhowaad 1,000 askari aan ka qarameynayno ka diiwaan gelinayno mushaar ka siinayno ka hubeynayno siday cadowga uga difaacaan reer koonfur galbeed iyo Soomaaliya inteeda kale ma niyad jabi karno ma nasan karno inta isbitaalka xudur aan soo arkay uu dunsan yahay ma nasan karno ma niyad jabi karno inta isbartiibadii aanay dhisnayn ma nasan karno ma niyad jabi karno inta gabdhihii iyo odayaashii iyo dhalinyaradii Soomaaliyeed aan ku soo arkay magaalada xudur ay yiraahdeen waa in magaalada nololna loo geliyaa ma nasan karno inta aan ka dhamaystirayno wixii naloo igmaday oo ah inaan nahay adeegayaal oo adeega shacabka Soomaaliyeed kuwii aan u adeegaynay ayaa nala hadlay wixii nagula hadleenna waa inaan fulinaa
ma nasan karno inta ciidamadeena duwaahbeen u baahan yihiin ma nasan karno in dalkeenna inta lagu leeyahay ku dhowaad 5 bilyan oo dollar oo deyn ah oo hore loo galay iyo 100 milyan oo dollar oo iyadana loo galay deyn gudaha ah dowladihii naga horreeyay ma nasan karno inta dowladda federaalku ay ku filan tahay inay bixiso mushaarka dadka u shaqeeya dowladda federaalka kaliya laakiin aanay gaarin inay bixiso mushaarka dhammaan dadka u shaqeeya dowladda Soomaaliyeed ay ku jiraan dowlad goboleedyada oo dhan hadii Ilaahay yiraahdo ma nasan karna inta wadankeena wiilashii iyo gabdhihi loogu talagalay inay iyagu dhisaan inta ay ka qaxayaan ma nasan karna inta dadkeenu ay ka tagaan dalkan ay dalal kale shaqo ka raadsanayaan ma nasan karno in qola cadow ah ay jidadkeena iyo xaafadaheena iyo degmooyinkeena kala xiranayso ma nasan karno inta dunidu ay naga aaminsan tahay Soomaaliya waa meel aan dawlad fiican ka jirin ma nasan karno inta aan soo celinayno xorriyadii ay nooga tageen wiilashii iyo gabdhihii iyagoon waxba haysan ka xoreeyay cadowga dhaliyana xorriyadda caawa halkan aan ku fadhino ma nasan karno inta qof walba Soomaaliyeed uu aqbalayo ama fahmayo in sida kaliya oo dhibkan ku jirna looga bixi karo inay tahay in kulligeen aan aqbalno dawladnimada waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan aan u sheego qof idin imaanaysa malahan oo dalkiina idin hagaajinaysa qof idin naxariisanaysa ma jirto haddaan idinku isu naxariisanayna qof dhulkiina iyo khayraadkiina ilaalinaysa ma jirto haddaadan ilaalina qof idin imaanayso oo idinka idin la xisaabtamaysa si aad dadkiina wax u tartaan ma jirto haddaadan idinku isla xisaabtamina dawlad kaligeed shaqeynaysa ma jirto haddii qof walba oo Soomaaliyeed rag iyo dumar iyagoo aanay is xisaabin ma jirto qof ku jeclaanaysa dalkaada haddaad adigu jeclaan ma jirto meel dalkaada ka wanaagsan haddaad aaminsan tahay inay jirto in meel kale lagu noolaado dalkaada ka wanaagsan ay jirto hadday jiraan qaar aaminsan in dadka la kala qaybiyo la kala tafaraaruqo wadamo shisheeyaa loo kala socdo waxaan aaminsanahay anigu wadanka ugu fiican dunida inuu yahay dalka Soomaaliyeed dadka dunida ugu fiicanna inay yihiin dadka Soomaaliyeed dhulka dunida ugu khayraadka badanna inuu dalkeena yahay waxa kale oo aaminsanahay 2 sano ka horna dadka Soomaaliyeed aan u sheegay in iftiin uu jiro in barwaaqo ay soo socoto in dhibka laga bixi doono in Soomaaliya loo soo shaqo tagi doono mar dhowna taariikh cusub laga qoodi doono dalka iyo dhulka Soomaaliyeed diilayda si aanu gaarno meesha aan rabno marka waa in dhaqankii hore wax laga bedelo dhaqan ku salaysnaa qabyaaladda dhaqan ku salaysnaa nin jeclaysiga dhaqanka ku salaysnaa in dawladda lafteedu ay noqoto mashruuc lagu adeegto oo aan loogu adeegin shacabka Soomaaliyeed dhaqanka ku salaysnaa inaan la isla xisaabtamin dhaqanka ku salaysnaa in qofku wixiisa uu ilaashado waxa dawladdu ay leedahana aan la ilaalin qof waliba oo naga mida oo xumaan u jeeda dalkiisa ka dhacaysa haddii aanu joojin ama sheegin waa inuu ogaadaa inuusan ka soo baxayn tiisa dawladnimadu waa in wadajir loo wada istaagaa wadajir wax loo qabtaa waa in kulligeen aan bilownaa dhaqan ah in runta la isu sheego wax walba aan ka hormarino danta guud sababtoo ah qof waliba dantiisa gaarka ah waxay fulaysaa tan guud marka ay hirgasho laakiin tan gaarka ah ma keeni karto dan guud waxaan soo jeedinayaa marka anigoo og in la dadaalay waliba shacabka aad u nugulay aad u dadaaleen inteena ay noo igmadeen inaan iyaga u adeegno inaan iyaga matelno inta aan kursiga ku fadhino in la xisaabinayo haddii dadka dunidu ay shaqeeyaan 7 ama 8 saacadood Soomaaliya waxaana la ka rabaa inaan shaqeyno 2 jibaar haddii ay leeyihiin fursad iyaga dulqaadku ugu yaraaday annaga dulqaadkeenu waa inuu bataa haddii ay leeyihiin
fursad ay wax ku hadleeyaan, annagu waa inaanan waxba hadlayn. sababtoo ah ku dhowaad 30 sano ayaan saaxada dunida ka maqnay. ku dhowaad 30 sano ayaa naloo yaqaanay qaran dumay. si qarankaasi loo kabo, loo dhiso, loo istaajiyo, waa in dadka Soomaaliyeed ay isku duubnaadaan. waa in dadka Soomaaliyeed ay aqbalaan xalkii iyo mustaqbalkii ummadda Soomaaliyeed iyaga gacantooda inuu ku jiro. maadaama dadka anigu aan ka mid ahay, ilaahay fursad uu u siiyo dadkiisa inuu u adeego, waxaan hortiina mar labaad horena uga ballan qaadaya inta anigu aan hortiina joogo, aniga iyo inta ila shaqayso oo madaxweynaha ugu horeeyo, inaanan waxba ka hakra doonin ummadda Soomaaliyeed, waxna ka qiyaami doonin, Soomaalinimo iyo qarannimona ku shaqayn doono. waa mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum.